hargeysa maanta waxaan kula kulmay odayga dhinacan iga xiga oo la yiraahdo Daahir Quraysh oo jira 137 jir ah bal hadda ku soo dhawow Star TV badriyo waxaan kaga waramayaa guurkayga horeeyay 1921 bishii labaad anigoo maraya marjigiisu dhow oo la yiraahdo Garbaxse Jamaad Sayid Cabdullah Xasan oo sayidka walaalahaayeen ayaa baaristay waan soo taagay kadib weegaashaana waan ka helay walaalkeed bay ii geysay markaa basri waxaan doonayaa inaad inankan ii mariso waan jeclaanee markaa weli 3 masalo hadduu ka soo baxo waan ku meerinayaa 3 masalo ayuu weydiiyey waxaa yidhi faraskan gaaban goob cad baa la yidhaha fuul adoon fuushanayn ha ii imanin cidoodoo soo joogtana ha ii imanin hooyadayna iimay ka soo eg inay dhimatay ha sheegin inay nooshaana ha sheegin markaa waan dhaqaajiyey 2 cishaan sii socday waan tegey islaantii laasayo maalin baan ku nastay 2 cisho kale ka soo dhaqaajiyey waan ag imid kadib faraskii dhugu baa saaray lugna dhulkan jiday cidoodoo badhka soo baxayna oo bannaay dhacday ayaanu imid markaa wintuu qosla yidhi iidoo dhalay wallay gaala yaryar kanoo maskax weyn islaantii baa gooday buu odhane markaa baan yidhi afkaaguna laga helo markaan yidhi afkaagaa laga helo bilow ciidankii oo dhan shacabkay garaaceen jamaad baa faras soo dhaqaajisay annakaygii baan ku dhaqaajiyey sheekh maxamed cali qablax ayaa yidhi sidaa gabadha xaggay kaaga dhicin xaggaada ma ku dhacdo kadib gabadha soo bootay xagga meesimid waanu nimid sheekh maxamed cali qablax ayuu yidhi taannada khaymadda u dhisa dhanan ileeyow raac faarax dhoorow raac soo meeriya sidii baa dabisa lagu meeriyey kadib waxaa dhali weyday 3 sannadood ayaa ku dulaabsaamay markaa basri boqor Itoobiya oo muslina ayaa waray soo diray haddii kaa guursan waayo halkaa waan kaa tooganaya kuna waayi maayo waxaan orad ilaahay baa isqariye Daahir Quraysh sheekadu way noo sii socotay waxaanu ii sheegay da'diisa iyo waliba intii uu jiray inta dumar uu soo guursaday waxaan 137 dumar waxaan soo guursaday 720 hada haweenkaayo ka sheekay maraaxilka 720 sidaad u qabtay dadku wax dhibaatay wax raaxal weynayeen oo wanaagsanayeen oo kulli waxa la yiri xilaaga lama ceebeeyo waa gartay laakiin 720 diitu oo kale markaa maqaarkood dad furaysay wariga xabad ma soo qabay malxamada quraan dhigi jiray wadaba marka meel ka gooriyay ma raaci may oo furayay tukala meeshka laga gorsan jiray taymkana waxa 3 jir Daahir Quraysh waxa uu sheegay inuu hadda guursaday inaan 23 jira waxaana weydiiyay bal hadda qaabka sheekadoodii iyo waliba sida ay isku fahmeen maadaama da'diisu ay tahay 137 jir ayaduna ay tahay 23 jir taymkana waxa 3 jir ina baynayay iyadoo waxaan ku kulanay basig jigeer baa raacay way soo fariistay marka baadi eegtay wadhiday anoo naagay oo soo dhintay kadib waxa dhacday inay jiri waan ka helay waxaan naagaysay maxay ka taqaanaba imkaan ku baranayaa wajii kadib ay shaqaysanay 3 shaqale markaa shaqaysanay baabeeru yade hibadii baan way ka qaatay barguulad baa lagu meeyay sidii baan gabadh ku qabaa aad baan isaga helnay wala iswaafaqnay أنا أشكو دورسنايو إيدنا أشكو دورسنايو. سوانا بدنا وقت قاعد شرتي ووقت قاعد در محاك وقولا يا بدنا إتياد صونو. وعاي جايب سنة هرجس مركز دخيليو ما لنا كفي جاونا مجرين. هالكان مركز بارو رام زبادة أنا كجرا
ayaan ka soo baxay laamiga agtiisa mid askari baasuka saawaysan arkay waxaan soo qaatay heere baashan biibaabtay kancada iyo xabad beekeya kii baasuka haystay baan ku fure kii baan gube markaa ma yeerarkii gidaarka ku xidhnaa kama fure kuwii imika baxday joogaa way noolyihiin gabagabadii maxaad soo jeedin waxaan odhanahaa dhulkiina amina nimca wadiin soo socotaa maxdan lagama baadhin weli barool uu noo soo bixi wax walba waa la heli ilaahay uu ku kalsoonaada saasaan igu ducanayaa waxaanan odhanayaa ha iska ilaaliya kelmad dagaalkiisa koy ku bilaabmay oo ahaa daymo la kor dhabay gacan loos dhibay hunguri lagu goday waa imaan la-aan ilaahay waxaad ugu carartiin toobad la kor dhabay towfiiq loos dhibay xorriyad lagu goday allah ina siiyo ma dhoweyd su-aasheeda igu dambaysa waxaad ii sheegtay ka hor intaynaan waraysi kaa qaadin inu sheekaysana waxaad ii sheegtay inankaagu imika aad tiri aad baabuu duqba noqdayba oo aad kaftanna idin dhex maray bal arrintaa ka war maalmaa ka mid ah aniga xasan cabdi khayle iyo cabdilaaji rawal ayaa u tagnay ka buu qaaday oo soo juuray wuxuu leeyahay war wuxuu cunuysii waaye haddaad dowladtihiin ninkana xila kabtuu soo juuray buu xasan cabdi khayle ku dhuftay kadib baan yaabe lacag baan u dhibay uu gogoyba waa sasamay waa 119 aad iyo aad baa